inaad toobad keenteen inaad koofiye qaadateen inaad dariiqii badasheen warka waa idinka hormaray markiiba waxay bilaabeen murtadiinta inay goodiyaan oo yiraahdaan qofkii maxay ahayto dariiqaas mara oo alla u toobad keena saaliisaan baa yeelaynaa waad imtixaanantahay maxaad leedahay marka waxaad samayn karta male allah baan tala saaranaynaa waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuhu allaan tala saaranay maanta waxaad tihiin sharaf iyo qurux baa idinka muuqanayo maanta ciza iyo sharaf baa idinka muuqanayso allah baan tala saaranaynaa sabarkaan kaalmaysanaynaa istaciinuu bisabri wassalaa allah wuxuu leeyahay wastaciinuu bisabri wassalaa waxaad kaalmaysataan sabarka iyo salaada kaalmaysta allah baan kaalmaysanaynaa waana guulaysanaynaa annaga gaalada colaadda aan la galnay colaad dhow maa ogaada taas gaal wuxuu dili kara male wuxuu noolayn kara male wuxuu kor u qaadi kara male wax hoos u dhigi kara male dagaalka waxaan kula jirnaa wax 20 sano ku dhow aroos lema ka qaadoonaba dagaalkiisa annaga farxad iyo aroos iyo qurux anba ka qaadoonaaba gaalka wax uu samayn kara male allah baa koonkan maamulo idinkana walaalahayaa tihiin safkanaan isu gaalmaysanaynaa annagoo wada jirnaan gaalada dilaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillaahi alcizzatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun allahu akbar wajazaakum allahu khayran waxaan rabaa walaalayaal inaan u mahad celiyo bacda xamdillaahi tabaaraka wa tacaala culummada oo sharaf iyo qiimo badan nagu leh culummaduna saad og tihiin oo warahatul anbiyaa rusushii bay dhaxleen mudday meeshaan idinla joogeen oo idinla jilballaabnaayeen duruus bay idin siinaayeen wakhtigoodii bay idiin horeen idinkamana ayan tegin ilaa gunaanadkii la gaaro waxay naga mudan yihiin walaalahaas marka ilaa nebiga ale salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh waxay naga mudan yihiin inaan dhahno jazaakumullahu khayran idinkana waxaa la rabaa inta aad meeshan ku fahanteen bacda allaahi tabaaraka wa tacaala sababku wuxuu ku yimid juhdi ay idinku bixiyeen marka waxaa la rabaa in ummadda culummada iyada ah aan si qalbisan oo walaalnimo ay ku jirto inaan ilaahay uga barino subxaanahu wa tacaala inuu miisaankooda xasanaadka u saaro maalin owlaad iyo maal ayna waxba tarayninna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyo khayrkaas iyo wanaaggaas iyo diinkaas ay u saciyeen culimmadaas marka aad arkaysaan maalinkii ay jihaadkaas la soo hanaqaadeen ama ay la soo jaanqaadeen ilaa yawmina haada goodintu way ku socotay cagajuglayntu way ku socotay in wax laga sheegaa waa ku socotay laakiin idinkaan idin weydiinaynaa hadday idinla suura xun yihiin iyo hadday yihiin libaaxyo meesha fafadhiya idinkaa ka jawaabahaya biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waana sida dadka ay u sheegaayeene diinku waa lagu cizoobaa ee laguma dilloobo ilaahay bay u run sheegeen jalla wacalaa tawxiidkoodii bay la soo baxeen ballankii iyo cahdigii ay muslimiinta la galeen ay oofiyeen ilaahayna waa ku dhooray jalla wacalaa ehelkoodiina waa ku dhooray maanta waxa la isku haystaayo waa iclaam qolo meeshan farmaajo uu hogaamiyo igu sawiraa loo bixiyey annagu igu sawir ma aha tawxiidkanaan rabnaa ummadda inuu gaaro ma fahanteen tawxiidkanaan rabnaa inuu ummadda gaaro xaqiiqda dhabta ahee taalla saaxaadka jihaadka inuu ummadda gaaraan rabnaa waxaan ugu talagalnaa waxay tahay dadka la marin habaabiyey ee facebookga iyo twitterka lagu wareeriyey inay xaqiiqda dhabta ee ka jirta wilaayaadka islaamiga ay arkaan oo indhahooda ku arkaan nin wax arkay iyo nin wax maqlayna isku mid ma aha ogaada taa iyada laakiin nagama aha istustusa oo adduunku ha idin arko oo ismuujiyada ee adduunyada qusaysaayo annagana ma qusayso walaalayaal sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo akhyaarta horteeda fadhida ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo badbaadshay god naareed oo qarka ay ka taagnaayeen waxaanse rabaa inaan mid baraarujiyo cafintu ilaah baa iska leh jalla wacala aadana ma leh rag baa hadlaayay hadda lahaa waadna cafiseen war annagu idinma cafinin ilaahay baa wax cafiyey jalla wacala laakiin tubti iyo dariiqii baan idin tilmaannay tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxan war kaalaya ilaahay u soo noqda war waxaad ku dhaxdeeni waa baadil iyo xaqdarro ilaahay baa dembi laga galay oo ilaahay baa loo noqonayaa subxaanahu wa tacaala annaga daatadannada dembina lagama gelin warkaa ma la dareemo taa iyadaa ha la dareemo nin walbana ictiqaad ha ka noqoto haddii kufri lagu dhacay ilaahay baa lagu xadgudbay diinkiisii subxaanahu wa tacaala haddii aad soo dooratay niman hadda aan ka warrami doono iyo qaab ay yihiinna waxaan idin dhihi lahaa walaalayaalow ilaahay baa dembi ka gasheen awal waxaa la rabaa waxay tahay in ilaahay loo noqdo subxaanahu wa tacaala ilaahay baa nagu leh noqosho ilaahay baa nagu leh saad og tihiinna suubanaha salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waxa uu yidhi
addoommada oo dhan waa dembaabaan se addoon dembaabaahii waxaa u khayr badan ninka dembiga markuu ku dhaco ka soo noqda durba oo dib u soo noqda in marka uu ilaahay idinsoo waafajiye maanta toobad ilaahay aad ugu soo noqoteen diinkiisa subxaanahu wa tacaala dembiga iyo khati'i idinka dhacayna aad ka qoomamateen oo dib aad uga soo noqoteen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala awalan annagu ka mujaahidiin ahaanna waxay noo tahay farxad maxaa yeelay intanoo walaalahanaga ah oo shalay naga maqnaa noona arkahayay inaan cadowgooda nahaa maanta maxay noqdeen xabiibkayaga noqday oo meeshan aan wada fadhinnaa oo aan wax wada cabbaynaa oo khayr iyo wanaag aan isku sheegaynaa laakiin shalay ma jirin idinkana waad naga cararayseen annaguna waa iska kiinfiirinayno waxaan lahayn baadilka iyo qurunka nimankii keena waa kuwan ee hal iska jiro soo ma garanaysaan walaalayaal marka ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala annaguna farxad bay noo tahay ilaahay baanan uga mahad celinayna macadaas khayrka badan walaalayaal ragga aad soo doorateen ee dhibaatadan iyo mahlakadan iyo dhibka idiin geystay awalan waxaan leenahay horta ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadiinna mid saadiqa ha ka dhigo ilaahay ha idinka aqbalo annagoo dhanna waa dembaabnaayay ilaahay dembigayga ha dhaafo jalla wacala ragga aad soo doorateen walaalayaal nin ogaa iyo nimaan ogaynba waa nimanka diiday ee culimmada hadda ka hadlaysay in ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqmo ka hor yimid nimanka aad soo doorateen waa nimanka iyaga wax kale haddaadan aadin oo kitaabka ilaahay la diiday in lagu dhaqmo ninka la soo taagan kitaab ilaahay kuma dhaqmayno maxaan dhihi karnaa sheekh firina wuxuu dhahay moogta dastuur waxay noo keeneen oo qabyo ah dastuur dhammaystiran oo gaalnima la diiday kii qabyada waa ka sii daraya soo maa waxaa la iska rabaa marka walaalayaal khayr allah idin siiye nimankaas horta waa nimankaas xukunkii ilaahay subxaanahu wa tacaala diiday ee bannaanka ka istaagay nimankaad soo doorateen inaad dareentaan waxaan xanuun uu idinku hayana waa muhim oo aad dareentaan wuxuu aysan ahayn siyaasad iyo shalay dhacday iyo maantay sii dhacday waxaan warka u cadaynayna u sheegaynana waa liyahlika man halaka can bayinatin wa yaxya man xaya can bayina wax kale ma ah ninkii halaagsanayana isagoo og ha halaagsamo ninkii ilaahay uu hanuun iyo khayr la doonayna ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalka iyagaas iyo wanaagga aan u tilmaannay ha ku hanuuniyo walaalayaal waxaani waa wax soo noqnoqonaya wax tegaaya ma ah shalay dhacday kuma eka farmaajo shalaa la soo doortay maantana waa ka gebagabo berri wuxuu rabaa haddana inuu dhaho halii soo aruursho odayaashii halii keeno axmed madow ahaa shalay kii la dooranaayo kuwa unbaa intay baxeen haddana loo aruursho meesha loo geeyey oo la dhahay xubnihii baarlamaankay soo dooranayaan waxaase la yaab leh mujaahidiinta markii horena waa caddeeyeen kadibna waa caddeeyeen doorashadoona imaaninna waan xasuustaa in dowraad la qabtay odayaasha loo yeedhay xaqiiqda meesha ka jirta loo sheegay oo la dhahay war niman yahow ha gelina niman yahow ha aadina war isaga jooga war waa gaalnimo cad sidaasaa loogu sheegay ayagoo dhagaha intay iska fureeyeen yay dhaqaaqeen ninbaa waxaa laga sheegay safarradu dhici jiraa ladhe jidkuu fariisan jiray safarradu dhici jiray markaasaa waagii dambe intii la wahwaaniyo safarradii waxaa la dhahay iska dhaafo uu iska dhaafo amin dambe asoo meel fadhiyo wuxuu arkay qolya wakhti dambe oo qaab daran socda si qaab daranna u socda baashiga ku soo duxday markaasna wuxuu yidhi si xunxun intii loo socdo yaa waxaa la dhihi hadhow sanay baa safarro dhacay soo ma garanaysaan yacni waxaa ula jeedaa intiis meel baas gacanta lala galo oo la dhaqaaqo oo warka mujaahidiintana dhagaha laga furaysto yaa hadhow waxaa la dhihi rabaa oday masaajid ka soo baxa madaxa lagu dhuftay soo ma jeedaan macluushaahidkayga meeshaasaan u jeeday oday masaajidka ka soo baxa madaxa lagu dhuftay mid baa xagga yaalla war dadka maxaa lagu laynhayaa muslimiintii waa la baabi'in baa berri la dhihi doonaa haddana waxaan leenahay laga joogo war ha la iska daayo yaan loo dhowaanin aan leenahay ayadoo saas ay tahay walaalo markaa waxa aad qabanaysa yaqiin u qaba adoo ogsoon u qaba laakiin annagu shalayna ma la gaabinin maantana la gaabin mahayo biidn illaahi subxaanahu wa tacaala inta aan dhawaaqi karnana waan dhawaaqaynaa biidn illaahi subxaanahu wa tacaala dadku waxaan leenahay soo noqda gaalnimada isaga hara ilaahay diinkiisana u noqda subxaanahu wa tacaala ama ninkii diida taa iyada ah waxay u taallaa biidn illaahi subxaanahu wa tacaala raggii mujaahidiinta ah iyagay u taallaa fagaaraha saad og tihiin walaalayaal dafcadan waa dafcadii saddexaad oo ay mujaahidiintu qabtaan oo lagu soo dhowaynaya raggan lagu magacaabay 51 ama odayaashii wax ka doortay golihii la soo doortay ee dawaaqiidda wax ka doortay walaalayaal marka xafladahan la qabanayo iyo wanaaggan la isku sheegaayo dhammaantayo faa'iida noogu jirto annaguna faa'iida noogu jirto intanoo muslimiin oo ilaahay u badbaadsadana faa'iida noogu jirto
idinna faa'iida idinkugu jirto ilaahay inuu dulligii iyo wixii aad samayseen intuu idinka soo saaray haddana aad wax faa'iideen oo hadda culumma meeshan taagneeda waxay lahayd suuratul faatixa aan sixi la'ayn ataxiyaadkaan sixi lahayn laakiin waa naloo saxay soo saas maahayn hadda waxaana dhacaysa 60 sano iyo 70 sano in ilaahay saas loogu tukanayay ka warraba sida haddii lagu tegi lahaa maxay dhici lahayd ilaa nabiga wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii somadhi annagu yaan kaga dayanaynaa diinkan nebi maxamed baan kaga dayanaynaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh 60 sanaad soo gaartay marka tawxiidkii baad sixi la'dah 60 sanaad soo gaartay suuratul faatixaad sixi la'dah oo maalintii ay dhacayso intaasoo jeer inay ku soo marto ku akhriso asalaadihii ku tukato ataxiyaadkii baad sixi la'dah dulli ka weyn miyaa jira walaalayaal way adag tahay waxaan rabaa marka in taa la dareemo nicmo weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala nicmadaas meeshan ha ku ekaynina oo hadhihina shabaabaa 10 beri dowra noo soo qabtay waa dhammaatay wixii seminaar la dhihi jiray qolyahan yaqaaneen hay-adaha oo kale ma aha kan kaas kan waa mid aakhiro mid ilaahay loogu dhowaanayo waay subxaanahu wa tacaala annagu wax baan kuu bidhaaminaye jahligii aad ku jirta adiga kasii dhaqaaq cajaladaha duubo memoriyada ku shubo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa sii faa'id masaajidka gal intii aad dunuub samaysay oo dhan ku bedel khayr iyo wanaag ku bedel biidin ilaahi subxaanahu wa tacaala walaalayaal nimankan dawaaqiidda ah ee aanu is hayno ee aad nooga hiiliseen aan dhihi karnaa xaqiiqda markii laga hadlo maxaa yeelay in aan intaan idiin yeerno albaabada idiin furnoon idin dhahno war wiilashiinnii baan nahaye gaalaa nugu soo duushay jihaad baan ku jirnaa nimanku waan is haynaaye ha nooga hiilinine kaalaya garabka iyaga noqda nusradii diintaa laydinka rabaa oo idinku waajib ah in la dagaalamaa idinku waajib ah kaalayna la dagaalamaa idin dhahnay markaasaa waxaa la mooday hunguri in diyaarad intii la koro ama turki la isgeeyo ama maamul goboleedyada xarumadooda intii la isgeeyo sida hadda la sheegaya 500 la qaatay iyo 300 la qaatay mashruuc oo dhan uu ku soo afjarno soo ma jeedaan nimanka marka aad nooga hiiliseen walaalayaal mabaadi sharci aan isku haysanaa ma aha waxaan isku haysanaa hadii idinka dhaadhiciyay manaadiqay isku haystaan iyo adduunyo isku haystaan hadii idinka dhaadhiciyay waxba kama jiraan waa been iyo huftaasiyada mabaadi sharci aan isku haysanaa ee ugu weyn tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa la hirgeliyo muujada diinkiisa la hirgeliyo shariicada aan ku dhaqanno waa la diiday qawaaniina naloo keenay qawaaniintaas la rabaa in sankana laga geliyo ma aqbalayna idinka idin weydiinayna marka ma aqbalayno aslan mana yeeli karno geerida dhaanta in maanta adduunkan korkiisa inaad ilaahay ku kufriso subxaanahu wa tacaala in aan intaan ilaahay ku kufrino aakhira aadna berrito maxaa naga dambeeya wax naga horeeya ma leh oo aan ka ahayn subxaanahu wa tacaala ilaahay cadaabkiisa waxaan rabaa walaalayaal culumadii bay laayeen waxay laayaan waxay sujuunta ku guraanay ka dhigeen limaada ay u laynayaan oo ka rabaan maxay ka rabaan diina laga urinayaa diin hadday muslimiin yihiin may dhaafaan culimada sacuudiga qiblada ahayd hadda maxaa lagu sameeyay culimada sacuudiyaanka awaya ya kulli waa xareysan yihiin halkaas lagu wada xareeyay war diinkan qof iskuma taago ilaa meel xun ku dambeeya wallahi waa xaqiiq la arkay taayada diinkan ninkii isku taago gaala wax moodo gaala bari way ka tagi doontaa waxbana ma ka faa'iidi doontid waxa ay isku hari doontaan waa khaaliqii ku abuuray iyo risaaladii nabi maxamed lagu soo dhiibay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi iyo godkii yaraaya ummadda intay ku dhigeen kaaga soo tageena kaaga dambeys wax kale meesha yaala male waxa walaalayaal kale ay sameeyeen muharramaadkii iyo dhan ay xalaal ka dhigeen idinka muqdisho inuu ka timaadeen laga yaabaaye khamrada dukaamanka lagu iibiya zinada waa muntashir meel walba taala waa baarar waaweyn loo furay oo la leeyahay waxa lagu cabaa xashiishada iyo waxa lagu sameeyaa khamrada lagu cabaa iyo intaas oo dhan la sameeyay soo ma garanaysaan gabdhihii baa dharkii laga dhigay oo la qaawiyo banaanka la geeyay aaway diinkii aaway islaamnimadii loo nasabsiganayay aaway haddii shabaab lagu haystay war waa argagixisan nimankaana wax baasay wadaan ayagu hadday muslim yihiin may tadbiiqiyaan oo sheegaan nimanka aad doorateen waa nimanka ku qowlaaya ee leh 24 saac kitaabka quraanka ah looma keenin in ummadda iyo dawladda iyo maamuladeeda wax ka qabto waa nimanka doorateen ogaada soo jeedaan war kitaabkan haduusan ka qabanaynin maamul dawladeed waxbo ma farratna fil kitaabi min shay ilaahi uu yiri subhanahu wa ta'ala ma dastuurka ka qabanaya wax oo gaal buuriyo qaba oo ilaahay ku kufriyo oo soo qorqoray ma wax ka qabanaya ummadan xalkeeda aslan ma suura gali karto walaalayaal waxyaalaha ay sameeyeen oo kale waxa kamid ah dalka nagiya gaala lagu wareejiyay nabadan kufridiida hadda noo sharaxay Soomaaliya dad aciza ah oo sharaf leh oo laga heebaystaan ahay maanta laakiin maxaa noqon inta yaray mujaahidiinta ordaysa ma ahane dadkii waxay noqdeen nin wuxuu dhahay ganacsadaan ahay nin kalena wuxuu yiri sideedaba anigu waxaan ahay nabadoon
shacabaan ahay meel buu fariistay ma garanaysaa kuwana iyaga ay u noqdeen ciidan hor socday u noqdeen aaway Soomaali marka yaa la rabaa markii inuu ummadan dalkeedii difaaca iyo diinkeedii iyo mabda'eedii inuu difaaco yaa la rabaa war ilaahay idin ku dhaarshay haddaad intiinan iyo inta inaga maqanba gacmaha aan isqabsanno meeshan waxa taagan min hortaagnaan lahaayeen nama hortaagnaadeen walaalayaal xaqiiqda marka laga hadlo laakiin gacan bidxayna jirta gacan bidxayn Soomaalidu waxay dhahdaa gudinay imaadan goyseen haduusan gibilkay kugu jirin kuwana waa kuwa hor socda kuwana waa kuwa gacmaha la laaftay oo saa u istaagay kuwana waxay leeyihiin bal aan fiirina meeshay wax ku dambeeyaan aakhirka dambe iyo meeshay bahasha isugu imaato aan fiirino talo ma kuwana la legdi doona mise kuwaas la legdi doona korashay ku jiraan halkaasay fadhiya soo ma jeedaan walaalayaal marka waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahay idin barakeeyo waxyaalaha kale ay sameeyeen nimankan waxa kamid ah tacliintii sharciga ahayd oo dhan ay la dagaalameen waa ogtiin wadanka shiica la keenay oo hadda la soo geliyo anaga ma shiica dhaqan u lahayn muslima yaqaan shiica dhaqan u maana lahayn anaga shiicadii waa hadda la keenay oo suufiye mar hore gubtay hadda shaatiye kale loo soo geliyo iskuuliye iyo balaayo loo furahayaa barnaamijka xadrada socon waay kii qubuurta dadka loogu yeerayaa socon waay waxa la yiri waa la kala dheereeyay hadda mashaariic kale iyo maraakiz iyo hal furo qorshahaas loo dhaqaaq kiiba marka hadda la rabaa in lagu naasnoojiyo mabdii sharciga asalka ahaana waxa la yiri waa xaq jirnimo banaanka hal iska dhigo oo maxaa dhacay waxa way dad hal dilo leeyahay dad hal dilo ninka zaaniga ee muxsinka ma la dila mise wala deena ninka naf muslim oo qadaro ku dilo maxaa lagu sameeynaa murtad kala hadee marka hadii riis dhaho yaan la dilin waxba gacmaha la laabto war anagu waa laynayna gaalada iyo cid alaaliyo cid shariicadana ay banays taana waa mabda ah qorshayaalka maanta meesha yaalay kamid yihiin walaalayaal waxyaalaha kale oo ay nagu hayaan nimanka waxa kamid ah saad ogtihiin ba hadda kana istiyay faafinayaan meel walba hadda kaniisad waad ogtihiin tiikis ma hadda wala dayactirayaan maqlaay muqdisho kadalika hargeyso sidoo kale soo jeedaan kana isti nimankii gaalada mar hore baqtiyay isticmaalkii meelahan uu nooga tagay ya hadda la naashnaashaya ya kaniisad loo dhisaa marka cid loo dhisay kaniisada meeshan joogta waatuma dadkan Soomaalida waaye heer waxaana la gaarsiiyay maanta ida qofka Soomaaliga ah عز iyo sharaf u haystay اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إلهي محيري ورضيت لكم الإسلام دينا إسلامكم عز iyo sharaf u haystay ninka Soomaaliga ah asagoo qamrag gacanta ku wata hada galbata aan dhufin indhaha kaaga tufadhicij laakiin maanta maxaa dhacay banaanada intii la soo istaaga in la dhaho kristaanana anaga ya waa gaalownay diinkii waa ka noqonay youtube-yada la isku soo shubaa imaatay soo ma arkaysaan waxyaalaha maanta meesha yaala waay akhi walaalayaal waxa kale oo ay nimankan ugu hayaan waxa kamid ah dalkan khayraadkiisa iyo ummadan hantida ay lahayd oo dhan macna daro lagu bixinaya oo ummadii la dhaafinaya war inta soo qusac balaad iyo wax ka badan oo meeshan ku soo koobi karin nimanka gundhiga u noqday ee hawshaasi haya nimankii soo doodhoobay ee meesha soo fariisiyay ilaa intee la eegay dambiga qaadan kara si khiyaanada ay ummadda u geysteen intee la eegta aad bay u weyn tahay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala توبة دب أهان أقول نقولنا إلهي سبحانه وتعالى ست دب أهان أقول توبة كأنه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا تاسعنا أنفعيسة يينا نقول نقولن سياسة يينا نقول نقولن دنكلا إن كودنا يينا نقول نقولن مرحلة دنا ما أنت هلوجود بيسا نقول نقولن إلهي سبحانه وتعالى دروبتي أنقلنا الله وديق بدنه وغفور الرحيم دنوبتي إسقى ضعف إلهي سبحانه وتعالى ولا يلأنون نقولنا gabagabadii waxaan rabaa inaan dardaaran idin kula dardaarmo fitan iyo aafa socoto wal isfidnaynaayay fitantaas laga digtoonaado ama qabiilnimaha lagu soo galo ama si kale lagu yimaade fitna socoto fitno dhici kartaaba nin qamiis wata inuu ku keeno dhici kartaaba mid isku qoystihiin inuu kula yimaado fitnadaasi xadar bay u baahan tahay iyo digtooni iyo in laga digtoonaado fitnadaasi waa fitnada kufriga ee saa loo wareejinayo shilimaadka lagu korwado dib u akhriya taariikhda inta la soo doortay oo dhan mid wax wadankan u qabatood garanaysaan baa jirta cid sumcad iyo sharaf umadan soo celisay miyaa jirta intii dabanahlaynaysa gaalada aslan ma jiraan maalin walba iyaga lagu dhagan yahay kan tuur kan ka dhici iyagii baa isku dhagan maxaa yeelay baatila marka horeba lagu heshiiyay walaalayaal baahashuyaysan naga noqonin marka in ay noqoto fidnada intaan dhaxroorno hadhowna toobo siyaasi ah oo markii beeraha webiga u yimaadana aan dhahayna waa toobad keenayna bari markii la wareerana la dhahayo hadana meeshii aan iska tagno yeena taan ugu noqonin ilaahay idinki subhanahu wa ta'ala ma garateen qadiyada kale aan rabo inaan dardaarmaa waxay tahay wasaa'ista shaytaanka uu wado shayaadiinta insi iyo jinni waa leeyihiin
wasaa'istaasna in laga dheeraado oo ah muslimiintani ama mujaahidiintani dhiigga muslimiintay ku haleelayaan wallaahi alladii laa ilaaha hayruhu waxaan ka jecelnahay inaad dhimataan inaad soo hanuuntaan horta taa dareema inaad soo hanuuntaan oo aad ilaahay u sujuudaan aan ka jecelnahay in gaalnimo lagu dhinto dariiq xun in lagu dhinto waxaanu ka jecelnahay hanuunkiina way adag tahay qof muslim oo muwaxid ah ridaha ilaahay soo raadiyo subxaanahu wa ta'aala oo diinkan u soo istaagay inuu dhiigga muslimka agtiisa raqiis ka noqdaa way adag laakiin waan ismarin habaabiye maanta dacaayad badan baa jira warbaahinta daldalaysa waa maxal dhigi jiray khawaarij maxal dhigi jiray dhiigga muslimkay u haleelayaan wax lama kala soocayo waxba lama sameynaayo fajazaahumullahu khayran walaalaha iclaamka aflaantii waa dhaweeytay soo bandhigayeen waxa la dhihi jiray magaalada muqdisho habara ku kuftay iyo intay ka dhacday iyo intay ka booday hoteelada la qarxinaayo ma idin tusay mismada arag hoteeladaasi ma hoteelo shacab ba mise waa goobo ciidan waa xarumo ciidan waaye hotel shacab ma difaac yaala hotel shacab oo difaac la dhigay ma aragtay idinka wali qiyaaliga la isku sheegaya kaas ah shaatigaas intii la isku soo hugiyay يا دفاع ماشي لا صور دغتay hoteeladaas ummadda la hor keenay markaas waxa loogu qoray Al-Jazeera Al-Fulan hotel Fulana loogu qoray meesha waxa ku xareysanna waa gaalada wadanku ku soo duushay labadii biyo hoostooda iska aragtay idinka iska kiin og annagu nimanka waa is ognaay meel walba ay galaana waa isla soconaay yaan idinku qaldintaa iyada wasaa'istaas shaydaanka marka uu waday ay mujaahidiintu uu agtooda hadurka iyo dhiigga muslimiinta kalla wallaah taas waa been ilaahay baan umar qaati gashanayna subhanahu wa ta'ala annagu islaamka inuu cizoobaan rabnaa agtanada sharafay ka leeyihiin dhiigoodana waa naga xaraam laakiin ninku ilaahay dhiigiisa baneeyay ka gaabsan mayno ma la fahmo warka isaga taana in la qaataan rabnaa bi idin subhanahu wa ta'ala qadiida igu dambaysa oo aan walaalayaal idin dardaarmi lahaa waxay tahay dhamaantiin barag iyo dumar inta ilaahay meeshan uu soo wada waafajiyay ilaahayna waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inta inaga maqan ee dariiqa ka luntayna inuu ilaahay dariiqa inoogu soo celiyo maxaa yeelay ma doonayno in ilaahay subhanahu wa ta'ala diinkiisa iyagoo ku kufriyay oo dariiqa xun ku jira inay ku dhintaan ma doonayno waxaan doonaynaa hanuunkooda iyo hidaayadooda aan doonaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u baryaynaa inuu soo hanuuniyo walaalayaal waxaan idin dhihi lahaa xarakadu awaamirta ay soo saarto ama mujaahidiintu awaamirta ay soo saaraan yaan la fududaysanin war haddii la dhaho war meeshaasi baas baa ka socda adigu waxaad dhici karta beertaada inaad ku mashquulsan tahay oo adanahaada adduunya aad ku mashquulsan tahay oo waxba xog aadan haynin laakiin mujaahidiinta xog bay hayaan nimankana ay masaaxada isku haystaan waa og yihiin mu'amaro walba iyo wax walba la rabo ummadan in lagu hagardaamiyay og yihiin haddii la idin digo oo la idin dhaho war ka digtoonaada meesha sarba ka soo socotay ka istaaga haddii la idin dhaho dhagahayaan la furaysanin hal la dhageysto biidin ilaahi subhanahu wa ta'ala warkaas siduu yahayna hal loo qaato haddii laakiin dhagaha intii laga furaysto la dhaho iska daawa iska hadlaayana waa dhamaanayaane annagu godobteena ma goodo meel ay ku qoranta taa hal i'tiqaadiyo kuwa wax ilmaama ma nihin nimanka hadda idin goodinaya dig iyo damta ku haya wallahi waxba idinka qaadi karin maxaa yeelay meesha waxa la isugu yimid oo dhan 4.5 ama nin laga qabiil weyn yaa jira min laga xidhay kubsan yaa jira ninka kale uma dhaqaaqi karo hooyadadna kuma dhacaan waxaan waa khiyaali iyo cagajuglayn been ah maxaad sagasheen oo dambi ah meeshana timaadeen miyad shabaabooday ilaahay idinku dhaarshay mise koofiyadana aad gashateen maanta ciidan ahaan la idinku qoray war ummad waxaa tihiin dambi ilaahay ka gashay subhanahu wa ta'ala allahoodina u soo noqday islaamka hortiisna ka iclaamiyay ma intaas dambi lagu galaya ya intaas hadii la dhawaal idinku xirxiramayeenaysan marka akhiran waxa ilaahay wala tamutunna illa wa antum muslimun dhamaantiina waa idin mahad celinayna fajazaakumullahu khayran allah idin soo waafajiyana waa ku mahadsan yahay inta dhimanna anagoo walaal ah shabeelada oo isla joogna ilaahay idinki subhanahu wa ta'ala wanaag iyo rayn iyo khayr inaan ku wada joogno nin walbana gurigiisa ilaahay nabad ugu celiyo inta dhibanna ilaahay u dhibka ka dulqaado inta ilaahay si dhab ilaahay subhanahu wa ta'ala tawbadanada ilaahay inuu ka dhigo mid saadiq ah fajazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh